kulan wacan daawada meel walba oo joogtaan mar kale waxaad ku soo dhawaataan janaalka tusmada filimada iyo sidoo kale abdeed kale xiisaa leh mar kale soo kordhay kuwaas waan isdhan xiiso way leeyihiin oo mar kale waad la wadaagi kartiin daawadaashana ku taxan barta tusmada filimada meel walba oo joogtaanna habeen wanaagsan warbixintana waxaan ku bilaabi doonaa jalaaga shaaruqan ayaa weli lagu dhagan yahay idoo sidoo kale markaana ay noqotay in maxkamadda ugu sareysay ee Hindiana in laga dacweeyo filimkiisa Batan kaasoo looyaro ay ka qoreen file soo horjeeda filimkaasi asagoo soo kale loo haysto arrimo la xiriira heysiisa filimka ka soo baxday cabashooyinka loo soo jeedinay isoo kale file laga qoray ee filimka Batan kaasoo hogaamiye ka Shaaruqan isoo kale Deepika Padukone ay wuxuu mid markaan muranka ka dhanka filimkaasi uu soo kordhayo filimka tani markii loo soo saaray heestiisa Beshram Rank ee heestu horeys filimkaasi ayaa wuxuu noqday markaan filimkaani hadlaan iska qabsada asagoo sidoo kale uu keenay filimkaani siyaabo kala duwan filimkaasi lagu soo horjeesto iyo sidoo kale heesta filimkaasi kasoo baxday iyagoo sidoo kale arrimaha ugu daran loo haysta in heesta filimkaasi kasoo baxday dharka loo adeegsaday ee Deepika Padukone ee heestaasi ku sameysay taasoo loo arkay in markaan maxkamadda sare loo baahan yahay in waxay ka qabato sidoo kale ay faalkaasi akhriso iyo sidoo kale bixinada la xiriira ayuu sidoo kale la wareysan doono wasiirka arrimaha media asoo sidoo kale uu ka hadli doono waxyaabo la xiriira heesta markaan dhibaatooyinka dhaxda ka gashay ee Beshram Rank waxyaabo lagu andacoonay ayaa waxay qaybkii in Batan filimkiisa ay yihiin mid la rabo in heestaas wax badan laga saxo soo kalena ay sheegeen inuu ku andacoonayo markaan ay tahay heestaas inay ku jirto waxyaabo aan shaxdara iyo sidoo kale mamnuuc ka ah Hindiya sidoo kale ka soo horjeeda arrimaha waxay u yeereen Hindu sentiments ama waxyaabaha Hinduuga iyo diintooda ay ku adag tahay soo kale waxay Deepika Padukone xirnaa dhar bikini nooca saffronka loo kaas oo soo kale keentay in inta badan atirshada ay qaawaneed soo kale aan loogu barnayn in Hinduuga waxyaabahaasi ay tahay mid aqbali karaan iyagoo soo kale dadka Hinduuga ee diinta ku adagna ay yihiin kuwa mid arrintaas ka soo horjeeda soo kale waxaa jirtay in lagu banaan baxay qaybaha indoor kaas oo soo kale arkay in la gubayay sawirka jalaaga Shaaruqan shalay toole sidoo kale waxaa jirtay in wasiirka warfaafinta iyo sidoo kale arrimaha media Anurag Thakur kaas oo arrintaas si kale waxa uu sheegay in arrimaha loo haysto filimkan ay tahay mid laga hadli doono sidoo kalena la xiriirta arrimaha diinta ku qusaysa iyo sidoo kale dadka ummadda reer Hinduuga dhinaca kale Shaaruqan ayaa arrintaasi ka falceliyay in filimkiisa markaan dhibaatooyin dhaxda uu ka galayo wuxuuna ka hadlay xilli uu ka qayb galay Kolkata International Film Festival kaasoo guuradii 28 la qabtay waxaana jalaaga uu sheegay arrimaha la xiriira social media markaan yihiin qaab dhibaatooyin ku ah qaybaha Hindian cinema sidoo kale wuxuu inta sii raaciyay in baraha bulshada yihiin markaan mid door muhiim ah ku leh in wax walba ay burburin karaan sidoo kale wuxuu inta sii raaciyay jalaaga in social media markaan uu yahay mid sidoo Malaysia awood ku sameynayo waxaanu sheegay inuu yahay in loo baahan yahay in arrintaasi laga hortago sidoo kale uu sheegay in yihiin nooc khusuusiyaadka hoose galaya sidoo kale uu sheegay in yihiin kuwa dad kala geenaya sidoo kalena burburinaya filimkan Batan ayaa wuxuu yahay mid iska leedahay shirkadda Yasraj Films waxaana filimkan uu yahay mid la daawan doono 25 January ee sanad soo socota 2023 filimkan waxa lagu daawan doonaa ilaa 3 luqadood Hindi Tamil iyo sidoo kale Telugu waxaana filimkaasi hogaamiye ka Shaaruqan Deepika Padukone iyo sidoo kale John Abraham waaga daawaday ugu dambeyn waxaan eegi doonaa warar xiiso leh waxa ka soo baxan filimka Welcome 3 filimkan waxa la sheegay markaan in lagu magac dari doono Welcome to the Jungle 2007 ayay markii uu soo baxay filimka Welcome qaybtiisa koowaad filimkaas ayaa director waxa ka Anis Bazmi waxaana soo saaray ka Firoz Nadwala waxaana filimkaas oo naqday filimada loogu jaceylka badnaa ee shactirada kaas oo sidoo kale oo muddo sanadoyin oo ahaaba filimada dooqa koowaad ku jiray taas oo sidoo kale ay keentay markaa in filimka qayb laga sameeyay kaas oo loogu magac daray Welcome Back kaas oo la daawado 2015 filimkaas ayaa wuxuu noqday mid sidoo kale wacdar ka dhigay qaybaha teatrada haatan ayaa qolada filimkaas waxay sheegeen in ay qurdarinayaan qayb saddexaad in filimkaasi laga sameeyo Firoz Nadwala ayaa boolida hangaam waxa uu sheegay in Welcome 3 markaan uu yahay mid filimkan lagu wici doono Welcome to the Jungle taas oo sidoo kale sheegay in filimkan uu yahay mid madadaalo u dhameystiran kaas oo ka wada shaqeyn doonaan taxanahooda uu sheegay inuu noqon doono mid ku saabsan arrimaha la xiriira military action kaas oo sidoo kale sheegay in filimkan actionkiisa noqon doono mid heer sare ah soo kale noqon doono markuu horeysay in film Hindi lagu arko in arrimaha diyaaradaha aircraft-ga loo adeegsado kuwaas oo sidoo kale action caalami ah lagu soo bandhigi doono sidoo kalena ay tahay mid miisaankiisa kor loo qaadi doono filimkan xagga actionada marka loo fiiriyo sidoo kalena sheegay in inta badan lagu qaban doono qaybaha duurka taas oo sidoo kale sheegay in filimkan markaan xiisiisa kor loo qaadi doono
filimkan ayaa waxaa la sheegay in markan hogaamiye lagu dhigi doono qolada filimka kala hore Akshay Kumar ayaa waxaa laga yaabaa in filimkaasi lagu soo diray inkastoo qaybta labaad filimkaasi uu ka maqnaa. Welcome ayaa qaybtiisa koowaad waxay ahayd mid hogaamiye ka Akshay Kumar, Katrina Kaif, Anil Kapoor, Nana Patekar, Firooz Khan, Malika Sharafat iyo Paresh Rawal. halka Welcome Back ee hogaamiye lagu dhigay John Abraham, Shruti Hassan, Nasruddin Shah, Dimple Kapadia iyo Shina Ahuja. halka Anil Kapoor isoo kale Nana Patekar ay yihiin kuwa doorkooda Majnu Bai isoo kale Uday Bai ay yihiin kuwa doorkaasi lahaayeen. haatan ayaa la ogeyn cid hogaamiye si rasmi ugu noqon doonto qayb saddexaad filimkaasi inkastoo haatan la sheegay in qoraalka sheekada filimkaasi ay socoto. intaan ku soo xirno daawada update-kana kale xiisaha leh markale soo kordhay kuwaas oo islaan markale waa la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxan barta tusmada filmada meel walba joogtaan hadda warbixinta ka shaqeyn noo saara sidoo kale saxaabtiin la wadaago ku maasintiin allaaba sad muuqaaladan u daawataan kan kiis xigana nabadgelyo.